madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminaya ayaa galabta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera wafdiga luuxdanay uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa safar shaqo waxa ku mari doonaan gobolada bariga Soomaaliland maalmaha soo socda waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Berbera maamulka heer gobol iyo degmo waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo gaaray duleedka magaalada Berbera uu markiiba bilaabay shaqadii uu ku maray gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalada Berbera waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu markiiba si rasmi ah u dhagax dhigay Freeson ama ballaarin lagu sameeyo marsada caalamiga ee Berbera waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ay kamid ahaayeen barasaabka gobolka Saaxil iyo maayirka magaalada Berbera iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland waxaana tilmaameen muhiimadda uu mashruucaasi leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu dhagax dhigay waxa uu tilmaamay faa'iidada ku jirta Freesonkaasi uu si rasmi ah u dhagaxay madaxweynaha Soomaaliland isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yiri aad baan ugu faraxsanahay inaan mashruuca maanta laga dhigo Freesonka kaasoo ahmiyad weyn leh aad iyo aad qiimo u leh aad baan ugu faraxsanahay dhigo insha Allah ilaahay waxaan ka baryaa inuu noqdo kii lagu guuleysto waxtar weyn u yeesho qarankii ummadda iyo ciidii qusay oo dhan geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa waxa ay soo kormeereen oo kale saldhiggii military ee dhawaan ay kala saxdeen dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu saldhiggaasi military uu haatan maraya meel aad u fiican qaranka Soomaaliland uu muhiimad gaar ah u yeelan doona saldhiggaasi waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu warbixin ka dhageystay injineerada kala duwan ee gacanta ku haya So when we open this area, when we open this mountain, we allow the water to come inside. That's automatically a support. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku guda jira kormeerka kala duwan ee mashaariicaha ka hirgalay magaalada Berbera ayaa waxa kamid ah oo soo kormeeray gudaha dekedda Berbera waxaana madaxweynaha Soomaaliland uu si rasmi ah xadhiga uga jaray mashaariic kala duwan oo laga hirgaliyay gudaha dekedda waxaana mashaariicdaasi kamid ahaa qalab casri ah oo loo keenay dekedda Berbera waxaana halkaasi ka hadlay mareeyaha dekedda Berbera iyo mas'uuliyiinta dawladda Imaaraadka Carabtu ay u wakiilatay ama shirkadda DBL ee iyadu gacanta ku haysa marsadaasi inaad maanta soo booqato mashruucii u weynaa mashaariicdii dalka aad ka fulinaysay anna waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay inay dhammaystiraan mashruucaagii mashruucyada ugu weynaa farxad gaar ah ayay runtii ii leedahay waxaanan insha Allah kugu ballan qaadayaa inaanu dhammaystirno dabagal ku sameeyno higsigii loogu talagalay aan gaarsiino insha Allah bismillaahi kariim We have to restagger 10 trucks and also for a semi-automatic spreader that will improve our performance even more. And in the next few months, we will have even more yard equipment come to Berbera. ayaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo kamid ah wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisha kala duwan ama shaqaalaha ka hawlgala dekeddaasi iyagoo arrintaasi ka hadlayeen hadalladoodii waxaa kamid ahaa hore waan ka baqi jirnay DBO laakiin labadii bilood wixii ka dambeeyay caad baan imika ula qabsanay mushaarka weyna wanaajiyeen wax walba weyna wanaajiyeen waan ula qabsanay cid walbana anaka uga horeynaa imika oo ka hortimaada General Cargo-gii balkiga la oranayay iyo doonyihii meesha way ka baxeen waxay isku bedeleen adduunkuna containers isku bedelay dekedeennana mudan madaxweyne waxaad u sii diyaarinaysaa in ay noqoto hab caalami ah oo bariga Afrika iyo dhammaan wadamada kala duwan ee jaarka ah aynu ka quudino taariikhda weligeedna soo marin oo lama arag heerka ay gaarsiisay DBL marka runtii waa wixii ay markii horeba saadaalinaysa mudan madaxweyne sheega dadku shaki fara badan bay ka qabeen laakiin maanta waxaad moodaa dekedii boorkii dubay inuu yahay lightka iyo dadku way isbedeleen wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya muddadii ay talada waddanka haysay ay wax badan ka qabatay magaalada Berbera annagu waxaanu lahayn qarankani wuxuu u baahan yahay horumar iyo maalgashi shaqo abuur sameeya dhaqaalihiisa kobciya muwaadiniintiisu bashbash iyo barwaaqo noloshooda u horseeda aragti ka duwan buu xisbiga wadani qabay oo aan looma baahno horumar maalgashina uma baahnin garan mayno iyagu waxay ku horumarin karaan waddankan annagu adduun deeq dunida maanu hayn deyna cid inama siiso annagaa maanta xilka hayna haddaana iyagu
dawladnimada garanayn ama haaneedin annagu maanta dawladnimadii baannu haynaa dadka shaki iyo been iyo dacayd bay ku abuurayeen waxay lahayn d b wal way inooga daraysaa dekedeennaa la qaadanayaa shaqaalaheenna waa la eryayaa xuquuqdoodaa la dafirayaa kontaynarada iyo waxa ka soo degaa way ka yaraan doonaan cashuuraha kordhi doona intaas oo aragtiyood ayay ku doodayeen shalay bay shacbiga somalilan dhegaysanayeen shacbigaa noo garsooraya annaguna waxaannu lahayn intaa cakiskeeda waxaannu lahayn dekeddeenna la qaadan maayo waynu wada guulaynaa waxbaynu wada dhisanaynaa keligeen iskuma filin waxaannu ahayn jidkaannu dhisaynaa waynu wada dhisanaynaa waxay noqonaysaa dekeddeennu 3 sanno gudaheed iyo waddadeennu meel durdura oo waraabisa geeska afrika madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo ugu dambayntii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka mid ahayd ballanqaadadii uu xisbiga talada dalka haya ee kulmiye uu ku galay doorashadii madaxtooyada ee uu ku guulaystay sannadkii 2010 madaxweynaha somalilan oo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa uu yidhi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halka kan ka soo qayb galo dekedda berbera fulinteedii exbanshankeedii iyo kordhinteedii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay insha allahu tacaalaa horumarkaa aynu dalka ka samaynay ee dekeddu samaysay waa mid dalkii dadku u baahan yahay waa midaynu maalin walba maalinta ka dambaysa ka sii kordhin doonno intaa waxaanu ka baryaynaa inuu inala gacan qabto isku soo wada duubo mashaariicahan kala duwan ee ka hirgelay gobolka saaxil ayaa ka mid ah mashaariicaha ay hirgelisay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa uu si rasmi ah xadhiga uga jaray dhismo 2 dabaq ah oo loogu talagalay in ay yeelato wasaaradda maaliyadda somalilan waxaana madaxweynaha somalilan u sharaxday wasiirka wasaaradda maaliyadda somalilan marwe samsam cabdi aadan madaxweyne halkan aynu joognaa waxa weeyaan wasaaradda maaliyaddu dhismahay ka dhisatay berbera oo aynu isla ogeyn qorshihii aad odhan jirtay in meelaha dakhligu ka soo baxo iyo meelaha xuduudda ku yaala inaynu quruxda somalilan ay halkaa ka muuqato wasaaradda maaliyadda iyo kastamka ay halkan isticmaali doontaa berbera dhowr iyo 20 sannadood aynu xorta ahayn waa markii ugu horreysay wasaaradda maaliyaddu dhismo ku yeelato marka dhismo muuqaalkii maaliyadda ka tarjumaya ayaa runtii aanu halkan ka dhisnay lowya caddo iyana laftii insha allah wiigan baa la furayaa oo iyana ku kan ka weyn ayaanu ka dhisno marka Djibouti laga soo talaabo si loo arko Somaliland muuqaalkeeda waa dardaarankii aadna siisay tiri meeshii Somaliland wajaale weyna ki soo furay aad iyo aad baan wasaaradda maaliyadda ugu mahadnaqayaa una bogaadinayaa hawsha fiican ee qabatay iyo farxad weyn way tahay maanta inaan mashruucan weyn qiimaha qaayalaan halka furo axmed sakidaar xasan iyo cabdilaahi cali suudi telefishinka qaranka Somaliland magaalada